Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa maxaa la dhahaa see u kulmeyn kartaa naas nuujinta adigoo cunug naas nuujinaysid caanana caadiga ah u siisid maxaa la dhahaa ilmaha caanaha loo qasay si aad u siisid maxaa la dhahaa naaskana aad u nuujisid waxaa jira hooyooyin badan oo dhahayaan cunuga maxaa la dhahaa caanaha naaska kuma filna way ku yaryahay maxaa la dhahaa oo caana u qasay inaa see cunuga caanaha loo siinaa naaskana wuu nuugoyaa marka hooyooyinka inta badan waxaan aragnaa inay ku wareerayaan hooyooyinka ee cunuga ay fahmi laayihiin maadaama caanaha qofka markuu cunuga caadi u siina cabirka loogu talagalo yaqaanaha uu siin karaa laakiin maadaama caanaha naaska aa siise ma qiyaasi kartid intaa siise maxaa la dhahaa marka hooyooyinka waxay u badan yihiin in cunuga caanihi maxaa la dhahaa ay ka badiyaan oo maxaa la dhahaa ama sooma tago hadduusan sooma tagin cunugii uu cayil uu xadkiisa ka badan aysan lafihiisa qaadi karin oo bilaabo ama hooyada inay caanihii ku yareyso ayadoo isdhehaysa naaska ama caano xoogo badan ka helay marka qaab isku dheeli tiran oo maxaa insha Allah muuqaalkan uga hadli doonaa haddii caanaha naaska ay yar yihiin aad inaa caano dabiici ugu dirtid cabir intee la eg ka siinaysa in isugu dari kartaa kaasaan kaga hadli doonaa muuqaalka marka soo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo maxaa la dhahaa aan soo booqata subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyoda cusub kuu soo gaaraan markii lasoo dhigo haddii hore aan ula joogtaan like saar si dad badan usii gaara siina share garay muuqaalka marka soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaalka maanta caadi ahaan naaska hooyada ilmaha waxaa la dhihi karaa cunuga uu ku yaryaho kale kasoo qaad haddii cunuga oo koranshihiisa waxaa loogu talagalay cunuga bishaba inay wax ku siyaadaan oo kg ku siyaado haddii cunuga culeyska loogu talagalay inuu xilli walba ku siyaado bil walba ku siyaado uusan ku siyaadaynin oo maxaa la dhahaa koranshihiisa sida loogu talagalay uusan ahaynin kasoo qaad ama cunugii haddii naaska nuugo ooyin badan uu leeyahay kale cunugii uusan dhargenin ama cunugii maxaa la hooyo shaqay haysa ay tahay oo kasoo qaad subax intay shaqa aad duhurada camal ay kasoo laabanayso ama hooyada ay mataano dhasho kale oo caanihi naaska aysan kaafin karin ilmihii maadaama ay mataanayaal yihiin marka xaalado badana keeni karo kale in cunuga naas loo deeyo baalka caanaha loo qaso waxaa kaloo kamid waxyaabaha keeni karo in cunuga markuu dhashay isla markiiba maxaa la dhahaa hooyada laga qaado xaaladda caafimaad cunuga ku dhashay oo maxaa la dhahaa in 2 maalin 3 maalin laga yaabo inuu hooyada arkinin oo maxaa la dhahaa oo meel gooni lagu haynayo kala xaaladda caafimaad ay la soo diristay cunuga markuu dhashaba marka waxyaalo badan ayaa sababi kara in cunuga hore caano looga bilaabo asagoo caano naas nuugin ama la isugu daro waxyaalo badan ayaa sababi karaan marka dhibaatooyin laga kulmo way jiraan caanaha caadiga ah oo maxaa la cunuga loo bilaabayo dhibaatooyin badan ka iman karo liana caanaha naaska hooyada maxaa la dhahaa meesha ay caanaha soo marayaan aad u yaryariin cunuga juhdi badan laga rabaa inuu nuugitaan fiican sameeyo si caano ugu soo baxaan marka cunuga nuugitaan badan sameeyo caano intuu nuugayo la eg ma soo baxayaan caanaha la soo baxaa marka cunuga juhdi laga rabaa inuu bixiyo halka caanaha sinaaciga oo maxaa la dhahaa booraha ilmaha loo qasayo dib dhan ma ka marayo cunuga oo u soo qasay afka ka saare masaasada da ku siinay sidoo kale masaasada afkeeda iyo afka oo maxaa la dhahaa caanaha naaska hooyada ka soo baxay isku mid ma ahan 10 jibaar waxa weyn kara masaasada marka cunuga dib dhan ma marayo waxa u fudud inuu masaasada nuugo ilmaha qaar marka waxa dhacdo ayadoo naaska siinayso kale caanihi ku yiraahdeen waxaas leedahay cunuga caano u qas marka u qasid caanihi naasku diidaa لأن عنق دبكاس أو مرة إن مربيو وعربا سيدان فضود وعلوش يقولرجي كرتو وكنا سنكروا رادينا مركا هدي عانها سناعي قلوب بالله وكلا جسع مك عنق لواصل قلوب بالله بحب بدن تا ilmaha qaar in caanihi oo naaska hooyada ay diidaan oo kale maxaa laha ama maxaa laha marka hadii taas oo kale ay dhacdo dibkeeda leedahay oo markaas oo kale hooyada in ayadu cunto badan nafaqo ay qaadato wadii cunug naasku diidi lahaa in hooyada cunto badan nafaqo la qaadato biyo badan ay cabto si caanihi naaski uu soo bataan cunugana ay u kaafin karaan marka waxaa dhici karto kale hadii caanihi naaska hooyada maxaa lahaa oo marna ay bataan marna maxaa lahaa caanihi ay yarahayaan oo kale ayadana way dhacdaa marka qaar kale qofka markuu xaalad stress ku jiro ama xaalad maxaa lahaa si ay ku jirto waxaa laga yaabaa in caanihi yaraadaan xilligaas oo kale cunuga caano u qasan kartaa marka u imaan ujeedada iyo muhiimka fiidiyowga waxaa waaye see u kulmeyn kartaa caanaha dabiiciga ah oo loo qasayo iyo maxaa la caanaha sinaaciga ah cunuga loo qasayo iyo naaska dabiiciga ah oo nuugayo see loo kulmin karaa marka inta badan hooyooyinku way ku wareeraan cunugii waxaa laga yaabaa in maxaa la caanaha intee u qasto uu dhameyn waayo haddana daadis haddana mid kale qasto uu dhameyn waayo ee hooyada leedahay cunuga caana ma cabayo waxaana laga yaabaa xilligaas hooyada ay u malaysan cunuga waxba uusan cabaynin in cunuga xadka loogu talagalay uu qaadanayo marka si ay ugu fududaato hooyooyinka ayaa hadda muuqaalkan hadda qaybtan kaga hadli doonaa
cunuga nuugayo kale maxaa lahaa uusan naas nuugaynin ee caanaha sinaaciga iyo gasacmanka kaliya loo qasayo naas in aan shaqo ku lahayn 3 saacadood baa hal mar loo qasaa waxaana loo qasaa 60 ilaa 90 ilma qaana 60 ay qaataan cunuga xoogoo yar baahidiisa badan too kalena 90 uu qaadanaa marka bisha koowaad ilmaha markay ku jiraan ee umasha yihiin caanahaasna aysan nuugin gasaca caanaha xabirka loogu talagalay waxaa waaye 3 saacadood baa hal mar inaa u qasid ama 60 u qasay ama 90 u qasay hadba cunuga meesha uu qaadan karo bisha labaad oo kale cunuga markuu ku jiro wuxuu qaadan karaa 90 ilaa 120 masaasada cabirka ku qoran waa masaasada waa aragteen 30 60 90 120 150 180 ilaa 250 marka nambaradaas ku qoran waa nambarada hadda aan sheegayo waxaan rajeynayaa inay ila fahmi doontaan ay la soo doontaan marka bisha labaad cunuga wuxuu qaadaha 90 ilaa 120 ml oo qaadaha 3 saacadood baa mar ma aha saacad walbo 3 saac hal mar ka siinay 3 saac oo subaxii kale markuu soo kaco hal saac oo kale markaa siisid 3 saacadood oo joogay 3 saac kadib hadana hal mar siinay cunuga 3 bil markuu jiro wuxuu qaadan karaa 120 ilaa 150 intuu dhexeyso qaadan karaa marka 3 saacadoodna hal mar waa marka uu cunuga bisha afaraad soo gaaro kala 4 bil oo jiro wuxuu qaadan karaa 150 ilaa 180 oo qaadan karaa 4 saacadood markii ay waladeed waxay 3 saacadood hal mar maadaama hada cabirka oo batay oo 150 ilaa 180 intuu dhexeyso ay tahay 4 saacadood ba cunuga hal mar caanaha siinay markuu 5 bil soo gaaro 180 inuu qaato loogu talagalay ilaa 210 4 saacadood ba hal mar waa 180 ilaa 210 4 saacadood baa hal mar inuu qaato loogu talagalay cunuga bish lixaad markuu jiro kale uu 6 bil cunug jiro uu yahay wuxuu qaadanaa 210 ilaa 240 4 saacadood hal mar uu qaadanaa marka 4 saacadood hal mar uu qaadanaa aan dhahno 12 maalin waxa laga yaabaa inuu 3 jeer qaato cunuga caanaha haddii ilmaha qaar oo cunuga baahidiisa ay badan tahay aragtidoo kale wuxuu qaadan karaa marka 4 jeer uu qaadan karaa lianna 4 saacadood ba hal mar siisay aduu cunuga uu 4 bil 5 bil 6 bil oo jiro laakiin haddii uu bil iyo 2 iyo 3 jiro 3 saacadood ba hal mar cunug loogu talagalay in caanaha loo qaso marka haddii cunuga hooyada ay caana caadi siinayso naaska ay nuujinayso waxay sameynayaan horta koow cunuga naaska u deyso waa hooyada guriga joogto cunuga kooda naaska in hooyada u deyso maxaa la dhahaa inta uu ka nuugi karo uu nuugo markii uu cunuga uu waxba uu ka waayo kala hooyada isleedahay kale cunugna uu yahay naaskana caana uu kala yahay markaas cunuga haduu hal bil jire 60 u qasal lahayd ka soo qaad haduu cunuga 60 loo qasay oo aha 60 ka kala bare markii aan cunuga naasa hore u soo siisay naaska ku filnaa waay 60 ka kala bare 30 u qasay marka 30 siinay cunuga haaf naaska ka qaatay haafka dhiman naaska caana ka way kugu ooyo 60 hawada qasan liana 60 kama wada dhameyn doono caanahan ilmaha gasacayda loo qasa inta badan waxay u badan yihiin hal saac cunuga markuu qasnaadi kadib inaan la sii karin inaan daadisado mid kale oo qasid ay tahay marka intii maxaa lahaa daadis ay gali lahayd waxa haboon cunugan kooda hore naaska sii naaska markuu nuugo cunuga inuu ooyin oo wada aragtid ama uusan dharganin 60 meesha uu qas lahayd 30 qasay لأن عانق أو قصة كلمة أو عنق ناس ولا نوجية مرك وقاعدني إنه صدّن ناس كنوجي صدّن إيه كلمة أنت قصة أو قصة مرك هذه بيش لواد وكجرو كله كسوقات سجاشن وعبا يو كله وكلا بري كلا براسين كود هرناس كاسوسينه مركو كلرجي وأركتيد كلا براسينه هذه عنق الحوجة أورنا سجاشن وسن قاعدين بقولاتن وقاعدنا يو كله زحلة ساعات بحلمر بقولاتن وقاعدنا بقولاتن كلا بري maxaa lahaa 60 siinay oo qasay maxaa lahaa liana 60 kala hor naas kugu soo qaatay marka cabirkaas loogu talagalay oo maxaa lahaa in ilmaha caanaha lagu siiyo hooyada naaska nuujinayso inuu ku cunuga naaska siisaa markuu naaska uu soo ku soo dhargi waayo cabirka ay siin lahayd waa inuu jadwal ay u leedahay hooyada warqad ay ugu qoran tahay meel ay u saaran tahay marka jadwalka cunuga sirta madaxiisa oo kale ku dhigsidaa fiican marka cunuga naaska uu ku soo dhargi waayo cabirka loogu talagalay taqaana la siinay haafa u qasiya cunuga saas ku siinay caana okay marka waxa jira hooyooyin shaqeeyaan oo kale oo subax intay baxaan duhurada imahay ama duhurada intay baxaan galbiga 12 saac imaanayaan hooyadaas oo kale waxa waaye maadaama aysan isku dheelitirkan aysan sameyn karin 8 saacadood hore haday maqan tahay 8 dambe joogtiin nuujinay cunuga 8 saacadood kala haday imaata ilaa ay caaw dhan in cunuga nuujiso liana saako dhan cunuga maysan nuujin naaska caana fiican soo galeen marka ilaa ay galbaho dhan way nuujin caaw haduu naaska caana uu aragto inuu ibar yahay markaas way isugu dari kartaa caana iyo maxaa lahaa inaas isugu dari kartaa hadii galinka dambe maxaa lahaa ashaqay sidoo kale galinka intaan joogto guriga ina naas leen nuujiso way cunuga si maxaa lahaa dhulta markaa baxdid cunuga caana loo siiyo gasaca aha
marka saas haboon in caanaha la isugu daro oo maxaa la dhahaa oo isku dheelitir loogu sameeyo ilmaha. Marka hooyooyinka badanaa inta badan aad ay ugu wareeraan maxaa la dhahaa isku darka caanooyinkan oo kale waxaana haboon hooyada inay qaadato biyo badan ay qaadato cunto nafaqo leh ay qaadato si hooyada caanaha naaska caana fiican ay ugu galaan cunugi maxaa la dhahaa naaska oo caana fiican ugu helo. Ilmahan inta badan waxay u badan tahay haddii gasac loo bilaabo inay naaska diidaan oo dhibkaas iyo caanahaas ayaga xoog ay ku soo saarahayaan inay ka caadisaan dhahaan kana loo fudud marka ay caanihii saas ay ula qabsadaan. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalkiina ay ka faa'iideysataan. Soo dhawaada haddii groupka ku cusub tahay subscribe noo saar gambalelkana furo. Haddaa hore noola joogtana like share dheh si dad badan u sii gaaran ay kaga faa'iideystaan. Soo dhawaada.